dad dhaqan lahan ku aqaan dadka reer waqooyiga ah xaggayga Somaliland waxay ka tahay dal jira geeska Afrika kamida oo qadiyadiisa iyo gobonimadiisu ay tahay lama taabtaan seedigayna waa yahay saaxiibkay fiqi wasaaradda uu kalaho haddii uu maanta madaxweynaha Soomaaliya taladayda qaadan lahaa inuu qof kale kugu soo bedelo inaanad negotiationska Somaliland iyo Soomaaliya dhexgelin aniga marnaba saaxiibkay si personal uga hadlin malaha cuqdad hore ayaa ku guntanayd oo rabaa inuu sheego dad laakiin fariintaas aniga waxaan ogaa inaadan halkaan u diray inay meel kale inaad u diraysid waad gudatay fariintaadii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxaan ixtiraamayaa kursiga aad ku fadhido waxaan ixtiraamayaa ummadda Soomaaliyeed aad mansabka u hayso laakiin runtu waxay tahay markaynu laba nin oo Soomaaliyeed u wada hadallo ummad Soomaaliyeed oo intellectually sinay in dhageysanayso aniga adiga anigu wax badan baan ka weynahay waan ka waayay aragsanahay wasaaradda waan kaaga horeeyay diplomacy-ga waan kaaga aqoon badanahay hadda ninka saaxiibkay waa cilmi badan cilmi waa la soo gaaray runtii anigu de negotiationska iyo diplomaasiyadda way aragnimo badan baan u leeyahay master's degree-gayguna wuxuu ahaa diplomacy iyo international relations PhD-gayguna wuxuu ahaa diplomacy iyo international relations African Development Bank-na waxaan ka noqday member of board of governors of the African Development Bank waxaan marka runtii anigu mar walba aaminsanahay walaalkayo afkaartayda aan aaminsanahay oo ah Soomaaliya haddii la kala go'ayo in si sharci loo kala go'o ummadda muslimka ah qofka islaaxa sameynaya waa qofka ummadda isu soo dhaweeyay tanaasul iyo jixinjix waligay kama muujinayo kuma xirna wada hadallada hadda la galayo taasi kuma xirna waa afkaar shakhsi ah ama waa afkaar mas'uuliyad saarayso laakiin midna runta hal ogaado ka tanaasuli mayno jiritaanka Somaliland seedigayna waa yahay anigu xaaskaygu waa hawiye oo seedinimadu dad dhaqan lahan ku aqaan dadka reer waqooyiga ah seedinimadu inuu xoogaa u dhowray ahayd iyo gacalnimada iyada waxaan rajaynayaa inaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya aanu xumaan u qaadin hadalkii aan ku yidhi laakiin walaalo kaftamayo uu ka soo qaado ascaanood waxa weeye waa dhul Somaliland sida warka ugu dhiirado oo u yiri laascaanood waa qayb Somaliland kamid ah oo dadka reer laascaanood halkaan joogo khaatuma aysan u boodin inuu soo boodin markaan dhahno Somaliland waa qayb Soomaaliya kamid ah xaggayga Somaliland waxay ka tahay dal jira geeska Afrika kamida oo qadiyadiisa iyo gobonimadiisu ay tahay lama taabtaan markaan anigu la hadlayo dadka qaarkii ma yihiin reer Somaliland oo Hargeysa uun joogayo Hargeysa uun la oranayo ninkan war kale ma haye intaa uu arkay buu ka arkaya awalan nin reer Somaliland ma anigu waxaan dhashay calanka hortii maalintii calanka la qaadanayay abahay wuxuu iga sheekeeyay inaan kamid ahaa carruurtii yaryarayd ee la waday beertii xorriyadda la keenay maanta after 64 years waxa ii muuqata inaanan wali calankii maalintaa la saaray aanan wax allaale waxaan ka faa'iiday haba yaraatee aanay jirin waxaan leeyahay si aad ah waxyaalihii hore oo dhan inta meel iska dhigo new page inta la furo new page kaas aan ku wada shaqeyno waa ka hadda Soomaaliya iyo Somaliland waa dhex fadhiraan hadana hadeerto saaka xiligan u soo socday furitaankii allo ma kulleeba Somaliland waa la matalayayo way joogaan wasiir fiqi maxay oran doonaa maaslaha laakiin se waxaan aaminsanahay inta la wada hadlayo mas'uuliyiin ilaa iyo madax ceeb ay
hadidaad iyo hanjabaad la isku kala diro dadkana waxba uma tarayso dalalkana waxba uma tarayso mandaqadeena guud ahaanna waxba uma tarayso annagu dad waxaan haynaba waxaa jirta samatalis wax la yiraahdo iyo madaxweyne Ismaaciil mar walba nagu bogaadiyaa yiraahdaa intaa wada jooggeega ayaan annaguna wax ku noqonaynaa haddii kale waxba ma nihin ka Jabuuti ahaan intaa yar baan nahay